رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، كسو دوادا شيخ ريمي جانل. waxaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan dal iyo dibad iyo da' kastoo aad jirtaan yar iyo weyn iyo qof kastoo aad tihiin rag iyo dumar, allah subxaanahu wa tacaala waxaan idinkaga baryayaa cimri dheer oo cibaado leh, adduunyo meelsan leh, aakhiro janno leh inuu ina siiyo dhammaanteena. aamiin aamiin aamiin. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل مرادي ومراد المسلمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين الإسلام. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، عاوحان إذن سوجيدنا يا فيديو عصب oo ah sideed ku garan kartaa qofka ku sixray iyo sixirka meesha lagugu duugay amaba meesha lagu dhigay. video caynkaas ka hadlay ayaan kuu soo gudbinayaa. haddii aad tahay marka ugu horeeya aadna maqasho, fadlan subscribe dheh, gambeelkana furo si waxyaabaha cusub aan soo dhigno ay kuu soo gaaraan. haddii asxaabteena hore nala jooga aad ku jirtidna, asxaabay waxaan idinka codsanaynaa like-ta in aad sidii roobka aad inooga yeeshaan insha allah biidni illaahi alkariim. haddaba videogeena ayaan gudaha u galaynaa. haddii aad rabto in aad ogaato qofka ku sixray iyo inaad sixran tahay iyo sixirka meesha lagu dhigay, si fiican ii dhuux. laakiinse aniga ka sheekh Riimi ahaan hal ra'yi ayaan ku siin lahaa. ra'yigaas oo ah waxba has ku mashquulinin qofka ku sixray. maxaa yeelay qofka ku sixray marka hore isaga waa qof gaaloobay, marka labaadna qofka ku sixray waa qof diinta ka baxay, marka saddexaadna qofka ku sixray waa qof nasiib darsaday waaye. wax allaala wixii oo adiga dunuub ahay oo dhan oo yacni adiga aad lahayd mid la wareegay waaye. waayo waa qof ku dulmiyey, waa qof ku dhibay, waa qof ma garanaysaaye ku silciye weeyaan. sidaas daraaddeeda waxaan kugula talin lahaa in aad adiga aad ku samirto, in aad adiga ma garanaysaaye dhibaatada imtixaanka iyo aad ka dareemaysid, allah subxaanahu wa tacaala faa'iido weyn ayuu kaa siinayaa. maxaa yeelay wuu ku imtixaamay. imtixaankaas haddii aad ku guulaysatid, allah subxaanahu wa tacaala fi dunya waalaakhira waa ku naxariisanayaa, dembigaadana waa dhaafayaa, jannatul firdows alaclana waa ku gelinayaa, isagana waa cadaabaya. qofkaas ku sixray, qof qaraabada ha ku ahaado, rag ha ahaado, dumar ha ahaato, ii sheeg adiga qofkuu raba ha ahaado. sidaas daraaddeeda waxba ha isku murjinin qofka ku sixro. mararka qaar waxaa laga yaabaa shaydaan inuu ku tuso in ma garanaysaaye qof adiga aad taqaanid oo ku tuso oo kuu tuso inuu ku sixray amaba in ay ku sixirtay. iska ilaali, shaydaanka waa dhagar badan yahay, wuxuuna jecel yahay dadka walaalaha ah muslimiinta ah dhexdooda ama qaraabada ah inuu kala fiijiyo, inuu isku diro, inuu ma garanaysaa kala geeyo ayuu had iyo goraale u ka shaqeeyaa. sidaas daraaddeeda ka sheekh Riimi ahaan waxaan kugula talinayaa in aadan isku daalinin qofkii ku sixray, ee aad ku dadaasho sidii aad uga badbaadi lahayd amaba aad isu cilaajin lahayd falkeeda aad gasho. waxaan kuu soo gudbinayaa qaabkii aad ku ogaan lahayd in aad tahay qof sixran ama aad ku ogaan lahayd sixirka meeshii lagu dhigay amaba lagugu duugay. hal suurad keli ah ayaan kuu soo gudbinayaa. halkaas suuradoodna waxaad ku tukanaysaa salaatuleyl 21 casho. waa 3 isbuuc weeyaan, ama waa 3 toddobaad weeyaan ayaad ku tukanaysaa. amaba haddii aadan korka ka saynin, kitaabka ayaad ka akhrinaysaa xilliga salaatuleylka la tukado. waad weysaysanaysaa, 2 ragcadood ayaad ka hormarinaysaa oo salaatul xaaja ah
in uu Allah subxaanahu wa tacaala uu kugu caafiyo. markaas ka bacdi waad ducaysanaysaa. markaas ka bacdi kutubkaaga ayaad la soo baxaysaa. suuradda aan kuu tilmaamayo ayaad akhrinaysaa. waana suurad la tijaabiyey, waana waddo la tijaabiyey oo lagu guulaystay in dad badani ay ku ogaadeen sixirkooda meesha uu ku duugan yahay, amaba ay ku caafimaadeen in ay sixran yihiin markii ay ogaadeen. suuraddaasi waxay tahay waa suuratu yuusuf weeyaan. suuratu yuusuf ayaad 21 habeen ayaad akhrinaysaa. waad ku tukanaysaa haddii aad xifdisan tahay, haddii kaletana waad akhrinaysaa. oo sidaan kuu sheegay weysada markaad aad weysaysato ka bacdi 2 rakcadood salaatul xaaja ayaad ka hormarinaysaa. markaas ka bacdi waad ducaysanaysaa inuu Allah subxaanahu wa tacaala uu ku tusiyo. suuraddii aad akhrinaysaa waad iska seexanaysaa. habeenkaas lay ahaata habeenkii labaad saasaad samaynaysaa. habeenkii saddexaad adiga 21 habeen ayaad wadaysaa. waxaad arkaysaa si saxaad u arkaysaa in sixirkii riya ayaa ilaahay uu kugu tusayaa in meesha gurigaaga meel ka mid ah leh ha ahaado, banaanka meel ka mid ah leh ha ahaado, daaradda leh ha ahaato, gurigaaga yacni qolkaaga dhexdiisa ha ahaato, barkinta laabteeda ha ahaato, joodariga laabtiisa ha ahaato, riya ayaa lagugu tusayaa. si aad u socotana waad soo bixinaysaa. ilaa waad xasuusataa markuu waaga bariyo, isla markii waad dhaqaaqaysaa. meeshii adiga aad ku riyootay adigoo xasuusan ayaad kala soo baxaysaa, amaba aad isaga soo saaraysaa. haddii sixir uu haddii jirkaaga ay shayaadiin qayb ay ku leeyihiinna waxaad ku garan kartaa in markaad akhrinayso cabsi aad dareento, in markaad akhrinayso aad miir daboolanto, in markaas suuraddaas aad akhrinayso aad argagax iyo madax xanuun iyo dhidid adiga aad dareento. haddii intaas adiga aad dareentid, shayaadiin ayaa jirkaaga ku jiraan. xanuunada nafsiga ayaa ku hayo, xanuunada ruuxiga ayaa ku hayo. haddii aad qof kugu akhrinayo oo raaqi aad u tagto, amaba dadka wax tutufa hadaad u tagto, dhib ma laha. laakiin haddii adiga isku tufto aad adiga iscilaajiso, ayatul kursiga, suuratul baqara aad akhrisato ayaa kaaga sii wanaagsan. haddii qof kaleente adiga aad raadsatidna falaa ba'sa weeyaan oo dhibaato ma laha. haddaba haddii aad intaas dareemin, laakiinse aad suuradda si kaamila aad u akhrisato, nabadna aad ku seexato, shaki kuma jiro in aad riya aad arki doontid. riyadaasna aad aragto ay ku tusi doonto, amaba aad ku fahmi doonto in sixirka meesha lagugu aasay aad arki doonto, shakina kuma jiro. haddaba walaalayaal, suuraddaas yar ayaan kuu soo gudbiyey oo suuratu yuusuf ah. waa inaad ku dadaashaa 21 habeen aad akhrisaa, aad adkaysataa, haddii aad rabto in aad ogaato sixirka meesha lagu geliyey. haddii aad rabto in aad ogaato in ay waxa ku hayaan ama sixir ay yihiin, maba shayaadiin ay yihiin. haddii sixir uu ku hayana waxaad ku kasaysaa, waad lablaboonaysaa, matag ayaad dareemaysaa, amaba waad matagee amaba labalaba ayaad dareemaysaa. marba haddii labalabadii aad dareento, suuraddani waa kuu dabe ee wad ha joojinin ilaa iyo adiga caafimaad taam aad ka hesho. axibbatii fillaah, intaas ayaan idin soo gudbiyey oo muhiimadeedu ay tahay in aadan ku mashquulin qofka ku sixray, ee aad ku mashquusho sixirkaaga qaabkaad isaga baabi'in lahayd amaba isaga cilaajin lahayd. intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa. waxaan helayay naf iyo shaydaan bay ka ahaadeen, Allah inaga dhaafo. waxaan hagaajinay fa min Allah xagiisay ka ahaadeen, Allah naga ajar siiyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.